waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonnaa waxyaabihii u qabsoomay hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ah garabka u qaabilsan Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank arrimaha gargaarka waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tagay ee 2022 annagoo eegi doonno waxyaabihii ay ka qabatay dhinacyada kala ah waxbarashada caafimaadka shaqo abuurka iyo sidoo kale arrimaha gargaarka iyo waliba musiibooyinka mashruuca deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation oo sanadkiiba mar la qaato ayaa waxa ka faa'iideysta ardayda ka baxda dugsiyada sare ee dalka waxaana ay shirkadu ku bixisaa lacag dhan 102,401.5 senti ururka Sohayda oo ah dadka la hayb sooco ayay sidoo kale waxbarasho ka bixisaa shirkadda Hormuud Salaam Foundation arday gaaraysa 100 arday waxaana lacagta ku baxdo ay gaaraysa $12,000 dugsiga An-Nuur oo ah dugsi u gaara waxbarashada iyo tababarka dadka qaba baahiyaha gaarka ah gaar ahaan kuwa aragga naafada ka ah ayay Hormuud Salaam Foundation sanad waliba waxay ku bixisaa lacag dhan $164,892 hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sidoo kale caawisa dadka maqalka la ee wax ku barta dugsiyada dalka waxaana ay sanad waliba ku bixisaa $10,000 Javanin oo ah deeq waxbarasho ay iska kaashadaan Hormuud Telecom iyo dawladda Ingiriiska oo ah sidoo kale deeq waxbarasho oo master degree ah ayay shirkadda Hormuud Telecom waxay ku bixisaa lacag dhan $44,354.12 senti dhinaca shaqo abuurka mashruuca tababarka mootooyinka oo ah mashruuc lagu tababarayo ilaa 1,000 dhalinyaro ah ayay Hormuud Salaam Foundation sanadkii tagay waxay tababartay dhalinyaro aad u fara badan oo gaaraysa 124 waxaana ku baxday lacag dhan $15,240 dhinaca caafimaadka haddaba Hormuud Salaam Foundation waxay ka qayb qaadataa bixinta iyo mushaaraadka laba xarumood oo ku kala yaala degmooyinka Daynile iyo sidoo kale Gubadley waxaana ku baxda lacag dhan $14,112 hay'adda sidoo kale gacanta waxay ku haysaa 87 qof oo si joogto ah kaliya looga dhaqo toddobaadkiiba 2 jeer waxaana bishii ku baxda lacag dhan $500 iyadoo sanadkii ay gaarayso lacagta ku baxda $500,000 Hormuud Salaam Foundation sidoo kale waxay caawisay shakhsiyaad xanuunsan oo gaaraya 308 qof kuwaasi oo dalka dibaddiisa caafimaad u aaday iyadoo lacagta ku baxday ay gaarayso $555,657.53 senti taageeridda isbitaalka Banaadir hay'adda Hormuud Salaam Foundation sanadkii tagay isbitaalka Banaadir waxay u soo iibisay qalabka lagu koriyo ilmaha aan bila dhamaysan oo gaaraya 25 dhalo waxaana ay qiimahoodu gaarayeen $37,875 sidoo kale hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa soo iibisay matoor dabka dhaliya kaasi oo awoodiisu ay tahay 275 kVA waxaana ku baxday lacag dhan $20,035 sidoo kale hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxay ka shaqaysiisay warshadda dhalisa oksijiinka oo ay ugu deeqday isbitaalka Banaadir waxaana ku baxda qarash gaaraya $60,000 sanadkiiba oo isugu jira shaqaale koronto iyo agabyo kale arrimaha bini'aadanimada mashruuca afurinta bisha Ramadaan waa mashruuc ballaaran oo ay hirgeliso hay'adda Hormuud Salaam Foundation sanad waliba marka la gaaro bisha Ramadaan waxaana ku baxda lacag gaaraysa $313,855 waxaana ka faa'iideysta 6,584 qoys dhinaca abaaraha iyo musiibooyinka sanadkii tagay Hormuud Salaam Foundation waxay abaaraha ku bixisay lacag gaaraysa $350,000 waxaana la mariyay guddiga abaaraha ugu dambeyn qaraxii Zoobe ee dhacay 29 Oktoobar ayay Hormuud Salaam Foundation waxay ku taageertay lacag gaaraysa $200,000